عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. waxaa laga soo wariyey abi hurayra allaha ka raali noqday inuu nabiga yiri naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee haddii loo istaago salaad ma jirto wax salaad ah ilaa iyo midda waajibka ma ahee. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. أنس بن مالك الله ka raali noqday wuxuu yiri in nabiga naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yiri maxaa si ka ah dadka eega xagga cirka salaada gudaheeda. markaasuu hadalkii ku sii adkeeyey nabiga naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee waa inay ka joogaan fiirinta xagga cirka salaada gudaheed, haddii kale waxaa laga qaadi doonaa araggooda, indhaha ayay beeli doonaan. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله. عبد الله ابن عمر isagii aabihii allaha ka raali noqday waxa uu yiri waxaan arkay nabiga naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee oo salaada ku furanaya Allahu akbar, wuxuuna gacmihiisa ku abaari jiray oo ku aadin jiray labadiisa garbood, oo marka uu rukuucayana wuxuu samayn jiray sidaasi oo kale. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عائشة الله ka raali noqday waxaa laga soo wariyey inay tiri waxaan wax ka su'aalay rasuulka alle naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee milicsiga iyo ducka eegista salaada gudaheed. wuxuu yiri waa hab ka mid ah xadida uu shaydaan ka qaato qofka salaadiisa qayb ka mid ah. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. سهل بن سعد الله ka raali noqday waxaa laga soo wariyey inuu yiri waxaa dadka la amray inay saaraan gacanta midig dhudhunkooda bidixda korkeed markii ay dukanayaan. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. أبي قتادة waxaa laga soo wariyey in rasuulka alle naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yiri waxaa dadka ugu xun kan wax ka xadaa salaadiisa. markaasay saxaabada ku dhaheen sidee ayuu salaadiisa isaga xadayaa qofkaasi? wuxuu yiri naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ma dhammaystirayo qofkaasi rukuucdeeda iyo sujuuddeedaba. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. عبد الله بن عباس isagii aabihii allaha ka raali noqday waxaa laga soo wariyey inuu rasuulka naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yiri waxaa la ii amray
inaan ku sujuudo 7 lafood foolka uu ku jiro sanka intiisa hore nebiguna naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu tilmaamay xagga sankiisa labadiisa gacmood labadiisa lugood iyo faraha labada cagood. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. عبد الله بن عباس إساقي أبيه الله كرى للنقضي waxaa laga soo wariyay inuu rasuulka naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yidhi waxaa la ii amray inaan ku sujuudo 7 lafood foolka uu ku jiro sanka intiisa hore nebiguna naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu tilmaamay xagga sankiisa labadiisa gacmood labadiisa lugood iyo faraha labada cagood. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. أنس الله كرى لنقضي وحو يري waxaa salaad ina dujiyey rasuulka alle naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee maalin ka mid ah maalmaha markii uu salaada dhameeyey wuxuu wejigiisa soo xejiyey dhankeena wuxuuna yidhi dadow waxaan ahay iimaankiina ha iga hormarina rukuucdiina iyo sujuuddiina aniga iyo istaagidda iyo salaad ka bixiddaba waxaan idinka arkaa hortayda iyo gadaashay. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أنس الله كرى لنقضي waxaa laga soo wariyay in rasuulka naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yidhi sujuudda ku nagaada yuusan qofkiina dhudhumihiisa fidsan sida eeyaha ay u fidsadaan dhudhumahooda. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبي هريرة الله كرى للنقضي وحو يري نبيغا نحريس نبادقلي دوشيسا ha ahaatee wuxuu yidhi markii aad maqashaan iqaamada u socda salaada dhankeeda si miyir leh oo degan oo ha degdeginina ee wixii aad salaada ka gaartaan wax ka dukada wixii idin dhaafana gadaal ka dhammaystira. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. waxaa laga soo wariyey abi sacd al-khudri allaha ka raali noqday inuu nabiga naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee haddii uu qofkiina dukanayo salaad waa inuu hortiisa taallaa sudrah ama teed hana u dhowaado teedkaasi yuusan u oggolaan inuu qof dhex maro teedkii u yiilay isaga dhexdood. haddii uu yimaado qof doonaya inuu dhex maro ha la dagaalamo maxaa yeelay qofkaasi waa shaydaan. عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. عبد الله بن مغفل الله كرى للنقضي
wuxuu nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ka soo wariyey inuu yidhi, qofkii igu soo gaara anigoo sujuudsan ama rukuucsan ama taagan salaadda dhexdeeda waa inuu qofkaasi la yimaadaa xaaladda aan markaasi ku suganahay. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. أبي هريرة الله كرر لنقضي وحو يري رسولك الله نحريس نبدقلي دوشي ساعاتي وحو يري هدي آت صلاة استاكتو تكبير سو وده الله أكبر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. عبد الله بن عمر إساقي آبيه الله كرى للنقضي وحو يري وحان أركي نبيغا نحريسي نبدقلي دوشي ساعاتي أو صلاة كحرانيا الله أكبر وحو نقعميه سكو أباري جري لبدي سكربوت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. أبي هريرة الله كرر للنقضي وحو يري رسولك الله نحريس نبدقلي دوشي ساعاتي وحو يري مركاسي كدب الركوع إلا أكاقا حسيش الركوع ذا كدبني استاك أو كعسي التوسع إلا أكاقا حسيش استاقناشهاسي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عبد الله بن عباس إساقي أبيه الله كرى لنقضي وحا لغا سوري إن رسولك الله نحريس نبدقلي دوشي ساعاتي أو يري وحا لي أمري إنان كو سجودو تضبال لفوت إيو إنان لدودوبين أو لسكسو أرورين لاركا أماتمها أو سيدو دلو دايو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. أبي هريرة الله كرر للنقضي وحو النبي نحريس نبدقلي دوشي ساعاتي كسوريي متكين يوسن كدو كان مركليا أيضا قيب مرضاسي كمده أيسان سارين قربهيسا يعني يوسن دكان أيساقو دوت قاون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أنس بن مالك الله كرر للنقضي وحا لغا سوريي عائشة waxay lahayd qiraam dah yar oo jilicsan oo ku dhajisay gurigeeda doc ka mid ah. saanabiga naxariis nabadgelyo dushiisa haatay wuxuu ku yiri naga leexi dahaaga waayo sawiradiisa baa la hor keenaya intii aan salaada ku jiray oo dhan. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبي جهينة الله كرى لنقضي وحو يري رسولك على نحريس نبدقلي دوشي سهاتي وحو يري هدي قف هرمري قفك لأو كجر صلاة وقان لها وينيدا دنبكيسا وحاو قير بدنان لهيد إنو سوغو أفرطن. وريها حديث كان وحو شاقي إنو سنقرانين وحا لولدن لها أفرطن
ma waxaa loola jeeday maalmo mise bilow mise sannado. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. jaabir binu sumra allaha ka raali noqday wuxuu yidhi, nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu yidhi, maxaydaan safafkiina salaadda gudaheed ugu yeelin sida ay malaa'igta ugu safato rabbigood hortii? markaasi ayaan ku nidhi, rasuulka allow, sidee ayay malaa'igta ugu saftaan rabbigooda hortii? nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu ugu jawaabay, waxa ay buuxiyaan safafka hore marka koowaad oo isku qabtaan dhinacyadooda, yacni u istaagaan iyaga oo isku dhow. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. cabdullaahi ibnu cabbaas isagii aabbihii allaha ka raali noqdee waxaa laga soo wariyey inuu rasuulka naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yidhi, waxaa la ii amray inaan ku sujuudo 7 lafood, foolka uu ku jiro sanka intiisa hore. nebiguna naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu tilmaamay xagga sankiisa, labadiisa gacmood, labadiisa lugood iyo faraha 2 cagood. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. nucmaan binu bashiir allaha ka raali noqday wuxuu yidhi, waxaan maqlay nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee oo leh, waa inaad toosisaan oo aad sintaan safafka marka salaadda. haddii aydan sidaas yeelina, alla dhexdiinna colaad iyo khilaaf ayuu dhigayaa, macnaha waxaa dhexdiinna ka abuurmaya cadaawad iyo iskhilaaf.